waalidkay waxay doonayeen inay dilaan balse maanta waa muslimiin waa mid ka mid ah waraayadii Amina Silmi waxay ahayd muslim American saxafiyadii xubin u dhaqdhaqaaqda dadka muslimiinta Amerika waxay kaloo ahayd agaasimaha midowga haweenka muslimiinta ee adduunka waxay dhalatay sanadkii 1945 waxayna ka dhalatay qoys Kirishtaan ah laakiin waxay diinta Islaamka qaadatay sanadii 1977 markii ugu horeysay la kulantay muslim waxay kula kulantay college-ka ma aynan ku faraxsanin arinta waxayna u maleynaysay in ay yihiin jaahiliin ayna qasabtahay inay ka badbaadiso naarta inta waxay ka dambeeyay waxay bilowday cilmi baaris ku saabsan Islaamka muslimiinta ayaa markaasi kitaabka Quraanka Kariimka waxayna akhriday qaar ka mid ah kitaabada Islaamka oo ay ku jiraan axaadiista sababtay u akhrinaysa ayaa ahayd bal inay ka hesho daliil ay muslimiinta kaga soo wareejinayso diinta Islaamka una soo wareejinayso diinta Kiristaanka balse nasiib wanaag Allah ayaa jeclaaday bila kadib waxay aragtay nuurka Islaamka waxayna noqotay muslim waxaana tawxiidka loo qabtay Maaris 1977 xilliga ay qaadanaysa diinta Islaamka waxay ahayd xaasle caruur waqtiga kadib guurkeeda ayaa soo maray waqti adag ugu dambeyntiina ku dhamaaday furiin maxkamadda ayaa u xukuntay dhankii ka soo horjeeda haysashada caruurta sabab la xiriirta diinteeda inkastoo la dooransiiyay diinta iyo caruurta iyada waxay dooratay diinta maadaama yaqiinsaneed goosha dhabtaay inuu Allah suurtageliyo waxay sheegtay inay murug adag dareentay laakiin ay ka heshay xasiil aayad kursiga bismillahir rahmanir rahim الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم soo gelitaanka diinta Islaamka caruurteeda kaliya ma aysan ku weyn sidoo kale waxay ku weyda saaxiibadeed waalidkeed marka laga reebo ayeedeed iyo shaqadeedii waxaasoo dhan dib uma aysan celin laakiin waxay sii waday barashada diinta Islaamka waxayna la kulantay mashaayikh fara badan intaas kadib ayeedada ayaa noqotay qofkii ugu horeeyay qoyskeeda ay soo islaamay waqti kadib iyakana waa ay soo islaameen waalidiinteeda xitaa waxaa soo islaamay ninkeedii hore waxay noqotay daaci si weyn looga yaqaan dunida waxayna dumarka muslimiinta ku dhiirigelin jirtay inay xirtaan xijaabka oo ay ku faraadeega diintooda We put this on. This is an act of truthfulness, all right? So that everybody will know that we are Muslim women. We want everyone to know that we are Muslim women. We are proud of being Muslim women. But then this says a lot too. See, what this tells everyone who sees me is what stands before you is a woman of enormous strength, enormous courage and integrity. This woman will not lie. She will not cheat. She will not deceive. She will be the best employer, the best employee, the best friend, the best advisor, the best counselor. That's a Muslim woman. You can trust her. And it's a warning. Oh, yeah. It looks up here and it tells to everybody what stands before you is a woman who knows her worth. She knows her value. She is not a toy. So don't even try to play with her. Amina Silmi waxay door weyn ka ciyaartay adeega boostada ee la xiriira bashqada la isku diro fasaxyada ciida ee bishii Sebtembar 2001 warbixin ay soo saartay Royal Islamic Strategy Center oo fadhigeedu yahay Jordan Oman ayaa xustay in Amina ka mid noqotay 500 ee qof ee muslimka ah ee ugu saameynta badan adduunka sanadkii 2009 Amina Silmi waxay soo xajiday laba mar waxay saarneed kursiga curyaamiinta marna waxay mid ka mid ah dadka xujayda waxayna ka mid ahayd martida qaaska ee boqorka Sacuudiga waxayna deganeed qasriga Kaabada Amina Silmi waxay ku dhimatay shil gaari abara 9 iyo barkii maalin Jimcaha 5 bishii Maaris 2010 waxayna markaa ka soo noqotay hadal jeedin magaalada New York xilliga shilku dhacay waxa gaariga la saarnaa wiilayay oo ahayd isaga waa uu dhaawacmay laakiin waa uu ka soo kabsaday intaysa dhiman ka hor waxay ka shaqeynaysay mashruuc lagu dhisay xarun lagu bara haweenka muslimka xuquuqda u siiyay Islaamka